إذا كان كي مسؤولين ترى وقال ما حسب أنسى أحبابي حويا وأنا أمين أو ماشي كان عملت متر سما مركا وح الله وح غير سما يمشي جمعان خير مركا شيء إن ما قرنا عبر سنين أو تمام حويا إلهي أقوم علينا يا إلهي هو كلا يحري دبيك أصلاً متى كلام دباتويكي حفيز محمد شعبنا شاء محمد شعبنا تريح حسينا دا كم رعونا دباتويكي حفيز كموشي كأسلوبتا كسر دعي أما محمد كردا دعوه يمكن نصوم رأي هدي عندنا لنا على شديد القوة حبيستا شديد القوة لمتى شري لا تكون حوسيا تاسيو حويا قوات قلب سمية حقوق البني آدم كان هي شرطة ضل ويالا هي حقوق أساسية البني آدم أنت وقت هاتو نبع حفيزك فلاج قراجك كان بوسطها قوة سيئة iyo asaga mushkilad xilka ka hooseeya inta u dhaxaysa asaga dhacdo xabsiga ka dhacday xaqiiq marka ka hadlo dhacdo xabsiga ka dhacday ama ciidankaas dhulka ku timid oo uu asagu ku sameeyo taas waxa weeyo waxaan dhihi karnaa ciidanka qaranka annagu ku jirnay waxay ahaayeen dad gumaysi lagu haysto baa iyadoo sharciga jiro dowladnimada ay jirto haddana ninku markuu wuxuu doono sameeyo cid ka daba hadasha ama cid kaga daba timaadana la waayo nin walba waxaa weeyaan intoon adiga waxu soo gaarin geshiyaho taas waxaa daliil ku ah dee ciidanka qarankaaba qaarkii jirdil yaa u dhiman gaaray qaarko jirdil ciidankii laftiisa dilayska qaba ee sharcigu labisnaa la dilayo ee qaar naftooda u waayi gaaray oo markii dambe ilaa heerar loo diray ilaa hadda qaar ay xabsaneen maxaabiis marka واحد أيضا حواليا بقى قلنا هروي عبيست مع عيال يا أخي معي لكن هو بيجي وقفات لا ما راح شيء ما حرسك وقت الصوت تاسي جدك أنت سويت المنطقة أنت قاوعة أما قدرت دعامة يسوق أما معك ولا قعام في الشرط هاي أما إيش وقاي المقاط هاي لا أحسن ولا عدد وياه taas waxaa daliil aan cidna la weydiinaynin oo ah maxaabiista waa loo diin karaa maxaabiista u joogaan xabsigana dowladda xukunta waa ayadaa loo dili taas haddii aan halkaa kaga gudbo taa waa xagga maxaabiista jidilkeeda iyo wacdiga xagga kale maxaan ku idhahdaa gabadfalada maxaabiista laftooda loo geystay waxaa ka mid a maxaabiista waa inaan ku xidhnaa meesha adu markay tiradooda badan waxay gaadhay 180 maxbuus oo dumara ayaa wixii meesha ka dhacay
meesha ka dhacay ama maxaan ku rahdaa ninka xafiiska ugu sameeyay markaas ilaahay yar ku ahaa xafiiskii ciidanka waa ilaahay yar ku naagta qurux badan oo dhanba maalka loo keeni gurigaa loo keeni ninkii haddii naag kale loo keeno oo mas-uul loogu yahay gurigiina uu dadkii ka saaro oo iga taga wadnimada shaqadaada aad loo samaynaya wax uu samaynayo wax uu igmaa waxa waa la garanta qof walba oo aqliba bini aadam uu fahmaya cidde maxaan ku idhahdaa intooda badan maxaabiista ah naagta qurux badan ee la cafiyey waa naag la maray weeyaan waxaa weeyaan maxaabiista dumarka ah dumarkay ka qurux badan tahay adiga tusaale ahaan intaad soo qaato hoggaanka haddii intaad soo kacdo aad qol fadhiisatood aad hebleegu yahay ood gabadh askariyada la kula joogin nin kalena oo kula joogin iga baxaad inigoo shaqadaad aad aweyso gal gudaha maxaabiistaadi khasrad ahayna aad maxaabiista ilaali foox iyo bahal maxaan unsina loo shido bis maxaad malaynaysaa meeshaas waxaa dhacday habeenada qaarkood ayagoo isdagaalayana ayadii maxaabiisadaad iyo asag oo ay leedahay naagka xabsaday dowlibaasgeli isagana uu leeyahay waatan mid hal agtaa loo leeyahay hoosgeli markaad soo gallay adugu warka waa la jooji aniga raxmaana maxaa isku dig maxaa ka dhexlay markaan la hadlayaan waxay leedahay anagu daalacnaa taatan tusaale u soo qaato gabadha magaceeda anadisha oo qaadmaada waxay ahayd french group weliba 10 sanay ahayd isagaa maxkamaddii ka soo jiriyay intuu maxkamaddii aaday taas waa taas ta kale kuwii caafimaadka labada ahaa ayaguna isla gaari kuwii caafimaadka labada ahaa iyaguna meesha xabsi u meereera u hay waxaa dhacday maxaabiista dhexdeedii inay isku layso asaga laftiis aanu qabaa oo socdo kursanaya yaanu jecel waxaa leeyahay ninkaa wadbadan kaa la rabo adigoo hordaya oo shaqaynaya oo shaqada qaranka u taagan haddii waxaba lagu arki waayo inaad dad tahay iyo inaad dubaaq tahay in hadhow laga yaabo in la xisaabtamo sharci yimaado meesha ay ima weydo qofku sidii rabitaankiisa ahayd unbuyeedi kii ilaahay ka cabsana markaa uu cabsan ilaahay buu ka cabsan hadduu sharciga uu ka cabsan waayo ilaahay inuu ka cabsadaa u banaan kii mooyayaana dee suu doonu ka yeeli naga casas oo meel ku xidhan oo sanado laga yaaba inay ku xidhan yihiin ciyaalnaba lagu dhalanay karnaa meesha ciyaalka meesha dira lagu beero ama kuwii la cafiyay qaar buu lahaa isaga labada gabdhood saasay ahayd waxaa kale laba gabdhood oo faadmayaala aan shaqsiga ka bixno si guud waxyaaba dhacayana gabdhaha qofka magac dhala iska ilaali aye waa okay saasay dhaca jirtay okay waxaa kaloo dhici jirtay laba gabdhood oo kale oo la yidhaahdo faadmayaal in sidaa sidaa ayaguna ay ahayd okay taas halkaas ayadu kufsigu wuxuu ahaa ka dhuflayso